maanta oo ay tahay 4 bisha afraad sanada 2019 waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee khamiislaha ee golaha wasiirada. shirka waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. waxyaabihii looga hadlay waxaa kamid ah marka hore waxaa warbixin laga dhageystay guddiga amniga uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha kulankii aan caadiga ahayn ee u dambeeyay. waxay soo gudbiyeen xaaladda amni ee dalka guud ahaan iyo sida ay u soo hagaagtay xaaladda amni ee caasimadda. sidoo kale waxay ka warbixiyeen howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaanada Shabeellada Hoose iyo meelaha ay ka qabsadeen ciidamada argagixisada ee Al-Shabaab. sidoo kale waxa ay goluhu u soo bandhigeen sida ay shacabka ugu gurmanayaan ciidamada. xaqiiqdii meesha ay ciidamada furteen waxyaabihii lagu soo arkay warbixinta laga dhageystay waxaa kamid ahaa in shacabka iyo dadka dhalinyarada ama caruurta iyo haweenka ay la ildaran yihiin macluul daran ay ka jirto. xukuumadda federaalka Soomaaliyeedna waxa ka go'an u gurmashada shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa laga hadlay shirka golaha wasiirada ajandihiisa kamid ahaa waxaa la soo bandhigay sharciga tayo dhowrka iyo jaangooyinta wasaaradda ganacsiga ay keentay oo aad looga dooday. sidoo kale wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ay soo gudbisay jagada booska gudoomiyaha bangiga dhexe. magacaabistaas oo ay golaha wasiiradu ay ansixiyeen wasaaradda maaliyadda heerarkii kala duwanaa ay soo marsiisay processkii loogu talagalay ay soo marsiisay shakhsiga ku habboon qabashada xilka gudoomiyaha bangiga dhexe. imtixaanaadkii iyo qofkii u qalmay ee tartankaasi ay ka soo qayb galeen 146 xilkaasi u sharaxnaa waxaa ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo shakhsi heer sare u leh aqoonta dhaqaalaha kagana soo baxay jaamacado kala duwan ilaa heerka master degree kaga soo diyaariyay jaamacadda Liverpool. goluhu wasiiradu wuxuu cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inuu noqdo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed.